bismillahi raxmaan raxiim awal assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada janaalkan wararka ugu dambeeyey ee isboortiska soomaali oo meel xun taagan kadib guuldaradii maanta kasoo gaartay xulkii garisi inaba caadi maahan waxaa leeyahay sidoo kale ugu dambeyn wuxuu ciyaari doonaa ciyaartiisa 103 maalin kadib waa Alexander Isak oo kubadda mar hore ugu dambeysay Lionel Messi oo markaan la hadalhayo kadib macsalaameyntii uu naadigiisa ama xulka Argentina ka hele iyo taageerayaashii sidoo kale waxaa leeyahay dib muyuu ciyaari doonaa World Cup kale aad ay u adagta ayuu dhahay sidoo kale xulka usoo gudbay wareega ama usoo gudbay inuu ka qayb galo tartanka World Cup 2026 ninkii Kogarela ahaa oo Lamine Yamal wax ka yiri sidoo kale wax badan ayaa jiro oo ku saabsan Bukayo Saka sidoo kale ciyaartoy badan maanta oo kale sanad ka hor Cristiano Ronaldo muxuu ka sameeyay dunida inaba caadi ma ku soo dhaw janaalka ku cusub ya fadlan subscribe noo saar like dan siin share gaara kama dhicin daawashada muuqaal soo dhaw janaalkiin waa meeshiin waa xulkii qarankeena Soomaali ahaa oo guuldaro weyn qaatay galabta inaba caadi ma ahan bandhigiisa ma liidanin goolal waa lagu diiday xitaa kubad aad u qaldaneedo saa isleeyahay ahayd xataa goolka in advantage laga dhigo gooshaas la qoro xulka kubadda cagta Soomaaliya oo garsoorka diiday kadib firimbiga horeeyay oo dhahay inaba caadi maan 3 gool waxba ayaa kala kulanay dhangeena gaara inaba caadi maan garisi oo shabaqa gaaray weliba ilno qabay maadaama lugtii hore ka daafacano ewer ku dirnay la dhahay waraado nin weyn amiya Soomaali goolka dhaliweysay laakiin wax walba ma aad manaqo karto bandhigii ciyaartooyda hanadwalla ciyaartooy badan daafici wax badan waa wanaay maanta walow qalad uu ku jiro dhanka daafac iyo goolaya ay qadka dhexe weeryaanadeen waa ishnay maanta inaba caadi maahan insha Allah sanado badan oo soo socdan waa rajeenina sida ay si ka fiican rajada waa ay dhowdahay guulaysta Soomaali ha noolaato insha Allah mid aan naqano oo aamidoono kubadda cagta waa meesha kaliya ee mideyso ciyaartooyda iyo taageerayaasha iyo dhammaan siyaasiyiinta Lionel Messi oo weli la hadalhayo inaba caadi maan xidig weyn ayaa ka bixi karo saaxada kubadda cagta Yurub maadaama kulankiisa ugu dambeeyay ee gurigiisa uu ku dheelay Lionel Messi wax inta loo soo koobi karna maan waxaa leeyahay marka Lionel Messi bandhigiisii inaba caadi maahan xasuus gooni ayay u lahaa doontaa Lionel Messi xulkiisa 20 sano oo matalay 193 kulan ayuu dheelay halka uu dhaliyay 114 gool caabi oo ka ahaa 58 gool caabi sidoo kale waxaa leeyahay 10 hat-trick ayuu dhaliyay xulkiisa inaba caadi maan sidoo kale 2021 iyo 2024 ayuu ku guuleystay Copa America sidoo kale 2022 ayay ahayd markuu qaaday World Cup inaba caadi maahan 2022 wuxuu ku guuleystay tartankii finalism halka 2025 uu ku guuleystay FIFA Youth Under 20 uu ku guuleystay World Cup-ka 20 jirada inaba caadi maahan 2008 waxa waaye Beijing Olympic ayuu ku guuleystay halka 46 biladood oo xidig garoonka oo ku guuleystay halka intaasoo shay oo ku guuleystay 2 jeerna wuxuu ku guuleystay xidiga goolinta uu sareyso ee tartan ama World Cup inuu yahay ama Copa America inaba caadi ma ninkaas marka waa tagay sidoo kale Lionel Messi ayaa wax badan laga qoray oo ay kamid ahayd inuu ahaa xidiga ugu goolasha badnaa tartankii hadda loo soo baxay World Cup 2026 Lionel Messi ayaa 8 gool lahaa Luis Diaz 7 Mukweleta 6 gool Rafinha 5 Darwin Núñez 5 gool ayuu leeyahay inaba caadi maan Lionel Messi wax badan ayaa soo qoray waxa leeyahay 2025 inta uu gool jiray 37 kulan oo dheelay 29 gool oo dhaliyay 11 caawin oo ka sameeyay 40 gool oo gool iyo caawin isku jirtana waa uu sameeyay Lionel Messi marka inaba caadi ma nin maanta taariikh yar ama 2 daqiiqo loo soo koobi karo ma taariikhdiisa Lionel Messi waa loo xiisi doonaa markay imaato in World Cup la'aantiisa Lionel Messi la daawado aad iyo aad ay u kulashay leeyahay asigana waa uu yiri ma rajeyneenin maanta oo kale inaa ku dhawaaqo laakiin
way noqon doontaa oo waa go'aan nafteeda ka gaari doono tartan World Cup kalena inaa dheelo malaga yaaba ayuu leeyahay. marka kulamada finalism ayaa kasoo horeeya World Cup sida la rajeynayo oo May 2026 in la dheelo ay u badan tahay. marka May 2026 ayaa la arki doonaa kulan kale inta World Cup oo bilaaban. yaa soo baxay World Cup 2026 Canada, Mexico, USA, Japan, New Zealand, Iran, sidoo kale Argentina, Uzbekistan, sidoo kale South Korea, Jordan, Austria ayaa la arkaa, sidoo kale Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia iyo Paraguay. inaba caadi maan xulal kalena caawa ayaa la sugaa. sanad ka hor maanta oo kale Cristiano Ronaldo ayaa gaaray gooshiisii 900aad. inaba caadi maahan. haatan waxaa leeyahay markan waxaa u dhiman kaliya 60 gool ayaa u dhiman. 60 gool oo soo socota wuxuu ku gaari doonaa kunkiisa gool. inaba caadi maahan. ninkii Vinicius Junior ahaa ayaa batatan diiday inuu mar un ku niyeystay inuu ku biiro Sacuudi Carabiya. waa u diiday may ayuu dhahay. sidoo kale ninkii Casemiro ayaa lagu soo waramayaa 2026 inuu ka tagi doono naadi kubadda cagta Manchester United. wax walba markaan way dhamaadeen ayaa leeyahay. waana arki doonaa hadduu qandaraas u siixi doono iyo hadduu ka tagi doono. ninkii Cucurella ahaa oo aad iyo aad u ammaanay ninkii Lamine Yamal ahaa yiri wuu qalmaa seasonkan wuxuu qabsaday wax walba. waxaan rajeynaa inuu ku guuleysto Ballon d'Or. sidoo kale waa rajeynaa ayuu leeyahay diyaar ayaan u ah inaan kula kulmo ama aan kaga hor imaado tartanka kooxaha. inaba caadi maahan. waa tii Chelsea iyo Barcelona ay isku arki doonaan Champions League. ninkii Ancelotti ahaa ayaa xulka qaranka Brazil ku horseeday 3 kulan oo clean sheet ah. inaba caadi maahan. ninkii Ismail bin Nasir ahaa ee ka tirsanaa naadiga kubadda cagta AC Milan La Liga ama ku dheelay seasonka la soo dhaafay oo ku biiray naadiga kubadda cagta Dynamo Zagreb ee Croatia ka dhisan. ninkii Saska ahaa oo ka waramay horyaalka Premier League ee sidoo kale u galay wuxuu dhahay Premier League waa horyaal wax ka hadli kara malahan. markaan waa rajeynaa in aan kusoo bilaawdo waa uu adkan ayuu leeyahay. 103 kulan 103 maalin kadib ninkii Alexander Isak ayaa saaxada kubadda cagta kusoo laaban doona asiyoo ciyaari doona kulanka u dhaxeeya caawa Sweden iyo Slovenia. inaba caadi maahan. 2 xidig Alex Oxlade-Chamberlain iyo Dani Ali oo free ah. inaba caadi maahan. sidoo kale waxaa leeyahay dhalashada maanta 24 jir ayuu noqday Bukayo Saka. sidoo kale waxaa wararka ka mid ah ninkii ahaa Reece James ayaa noqday xidiga kaliya ee ka haray ku guuleystayaashii UEFA Champions League 2021 ee Chelsea. waxaa leeyahay kaliis ayaa ka haray. inaba caadi maahan. ciyaaro ayaa jira caawa 1-2 ayaa ka taaban doona. marka laga eego Europe waxaa jiro ciyaartooy xulal badan jiro tartanka World Cup-ka ah. Slovenia, Sweden, Switzerland iyo Kosovo. sidoo kale Denmark, Scotland, Greece iyo Belarus ayaa la arkaya. Iceland iyo Azerbaijan, Ukraine iyo France ayaa ciyaari doona. sidoo kale Italy iyo Estonia, halka Moldova iyo Israel ay dheeli doonaan. Croatia dheeli doonto. waxaa kusoo gabagabeynaya intaa ku kulmeen muuqaalka xiga waxaan naga tagi doonaa sidaas iyo ammaano Allah. bye bye.